عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي خالي وادن سلام ميل بعالمك جوجتان channel kan daawanaysaana waa Shaku Baba Show. fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar, haddaa hore noola joogtana like-da iyo comment-ka waa xaggaaga. halkaaga subscribe runaantii wuxuu ii yahay dhiirigelin ama wuxuu yahay hiil walaaltinimo. maanta waxaan u soconaa barnaamij filim lagu qabanayo Malaysia oo liigaga wacay inaan ka qayb qaato. runaantii waxaa aniga maanta aan isleeyahay hebel qof walba waxbaa loogu tagaa. aniga waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol waa ka adag tahay ama waa samayn taqaanaa ama aqoonteeda leedahay. waa filinkan dhalinyaro oo Malaysia joogaan oo walaalahey ah ayaa barnaamijkaas ka qayb qaadanayay. maadaama aan magaalka imaadana waxay dhaheen bas ilaa waa inaad ka qayb qaadatid. xaafadeyga ka soo baxay waxaan soo qaatay grab waxaa la yidhahdaa taksiga sida dhaweeye oo kale haddii Nairobi la imaado sida Bolt oo kaleeto waay ayaan soo qaatay. waa soo baxnay meeshaan u socdo waxaan kala kulmi doona maanta ma ogi. waxyaabahan ku arki doona ma ogi, maadaama dadkan waa horumarsan yihiin. markaan ku leeyahay waxaan kala kulmi doona ma ogi ma ahan wax xumaan ah. waxaan ka wadaa micnaha qalabka ay isticmaalaan waa qalab anaga markaan Kenya joognay aad iyo aad nooga horumarsan. marka qalabya oo aan sawirro bas ka arki jiray laga yaabo maanta inaan la kulmo amaba ay noqoto maalinkeyga ugu horeysa aan arko. baabuurka waxaa ila saaran walaalkey. ninkaas waa walaalkey, waa dhalinyarada reer Malaysia. ninka magaalada igu hayo waa ninkaan asaan buu shaqeeyaa oo mafahanti. marka waxaan rabnaa inaan meesha tagno oo aan barnaamijkaas soo kala fadhiisiino. idinkana waxaan jeclaan lahaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. run ahaantii waxay ii tahay dhiirigelin iyo hiila ii tahay. waa si toos asaan ugu soo laabto waa YouTube. Shaku Baba wixii shalay dhacay waa u sheegaa alla waa u sheegaa. Shaku Baba wixii shalay dhacay waa u sheegaa alla waa u sheegaa. xabada shiis shishumowgaas Shaku Baba bal waxaa shuuf shakligaas dheer shidadaas waaw shacnigaas waaw shaqusaana xabadii shidan dooni biile ela shawre waxaas waa shid ninka shiidhay shilinaan haysan lama sheekaystaan. 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 Shaku Baba wixii shalay dhacay waa u sheegaa. asxaabta qaaliga ah gudahan galnay. the only thing aan sameynayno waxay ahayd dhararka aan nagula cabirayay. waxaan u malaynayaa maalinta duubista laakiin waxaa waaye wardrobe la yiraahdaa. dharka ayaa nagula cabirayay marka waana ka gaari weynay annagaa soo daahnay xoogaa raashaa nagu jiray. marka insha Allah filimkan waa ka qayb qaadanaa. run ahaantii waa sheeko ku salaysan sheeko Soomaaliyeed ku salaysan dhex martay ciidamada Malaysiyaanka iyo Soomaalida. waana maanta haddii caalamka loo fiiriyo sheekooyinka gadmaayo ama sheekooyinka loo jecel yahay waxaa waaye sheekooyinka Soomaaliga. run ahaantii dhalinyaro badan ayaa gaarigaas ila saaran waana degdegsan yihiin. wajiyo badan oo taqaanaan insha Allah filimkaas waa ku arki doontaan oo reer Malaysia ah. hebel iyo hebel inta inaan ka sheego ma rabi, balse maanta filimka la duubayo waa February ilaa February ani waa joogaa Malaysia intaas joogaa. insha Allah waa isla socon doonaa waan arkaysaan. yes Yo, what is your role in this film? I am the production manager. Oh yeah, production manager. I'm gonna be taking care of you guys during the shoot. Yeah, nice. That guy Without him, we can't do any production. So Yeah. he makes sure from A to Z everything goes We need to smooth. collaborate with him. Yeah.
runaantii asxaabta oo reer Malaysia oo idin sheegay waa kana Cabdiwaxid garabkayga midig iyo Jerry waa tahay ka imaano sheeg rag xagee ka nimid vlogan hore uu soo bilowday waxa waaye waa soo sheegay in aan u socono meel lagu sameeynayo film si fiican waxa isla maanta la sameeyna oo waaba today setki lagu jira laakiin waxay ahayd wardrobe iyo xafiyada dharka ahayd oo u sii sheegay casting waa soo dhaafnay si fiican ya fitting waa maanta soo dhaafnay waa marxalada ugu dambaysa waa shooting bas aan oo dhiman aad weyn kadibna ni waxa ii sheegtaa hadda Soomaali ahaan sheekadan waxay ku salaysan tahay Soomaali si fiican adduunyahana maanta sheekooyinka laga xiiseynayo waa Soomaali inta hadda Malaysia joogtay filimkana ugu horeeyo oo Soomaali laga sameeyay ama isku kala jiray okay walaal waa su'aal aad muhiim ah Malaysia 15 sano jooga filimka waa kii saddexaad ka qayb galo ka shaqeynayno laba filna ka hor ismid ugu horeeyay Pascal oo ah la jiray wuxuu ka hadlayay burcad badeedka iyo badda Soomaaliya waxa ku xigay filim kale oo sanadkii 2023 ka qayb galay oo magaciisa ahaa Malbat asagana waxa laga hadlayay dagaalkii Bakara filimka Netflix ay ka heli kartaan Malbat Missy Bakara ayaa la yiraahdaa kana waa kii saddexaad waxa waay the foreign line the soldier of the foreign line askari u dhashay dal shisheeye oo dalkeena imaanayo oo afduub ee dhalinyaro Soomaaliyeed u geysteen oo ka soo horjeedo in shisheeye wadankooda qabsado marka filimkan wuxuu filmooyinkii hore ugu duwan yahay waxa waaye fikradii oo Black Hawk Down iyo naga soo saarayeen inay yihiin Soomaalidii dad fowdo badan dad oo argagixis ah dad oo rabshad darteed u dagaalamayo ayaa rabnaa inaan ka bedelno in wax ay jireen khalad dhacay dhinaca ciidamada oo shisheeyaha iyo markaas joogay khaladkaas awgeedna dad badan ee intay u xanaaqeen ay qori u qaateen qoriga ee dadkaas qaateen ciidamadii UNISOM markaas lagu kacay ciidamo oo wax dambi galabsanin ayaa marka ay kan garaafa ka soo gaareen soo hadda filimkan focuskiisa waxa waaye maxaa keenay inay dhalinyaro Soomaaliyeed ay qori qaataan si oo inni waxa rabnaa dadka tusno dagaalkii jira xilligaas iyo dagaalada badan adduunkan ka jira inay sahin dagaal diineed oo ahaa dagaal siyaasadeed dagaal oo sababta loo galayba ay ahayd sabab siyaasadeed si loo helo faa'iidooyin siyaasadeed badanaa dadku waxay u dagaalamaan laba wax ama diin oo waagii hore way dhici jirtay laba dal inay isku duulaan arrimo diin ah laakiin kadib dagaalada isku socotay waxaa la gaaray heer la gaaro laba oo dal oo kala diin ah oo isla jiro inay la dagaalamaan dal kale ama group dalal kale oo isla jiro isbahaysi ah soo martay xilligii taariikhiin Soomaalidii hore boqortooyadii Ajuuraan iyo Cadal waxay la safan jireen boqortooyada Islaamka Turkiga iyo kuwa oo Hindiya waxay la dagaalami jireen markaas oo kale Portugiis marka qaarkood way dhacday ay ku Portugiis la dagaalamay inay xulafo la ahaayeen Hollandiiska marka kadib hadan dagaaladii isbedeshay dagaal sokeeye ayaa adduunkii ka bilaabmay oo ah dad isku diin ah isku dhaqan ah isku maaragtay isku bulsho ah oo isdagaalayo Soomaali waxa la yaabay adduunka dagaal diineed la arki jiray Soomaaliya dad diin isku qabsado ama qoomiyad laakiin Soomaaliya isku qoomiyad isku diin ah sababta dagaalkaas markay ahayd sabab siyaasadeed oo niman siyaasiyiin oo rabeen inay arrimo oo siyaasadeed ku helaan inay dagaalkaas dhalinyarada u gelinayeen laakiin dhalinyarada dagaalkaas ku jirtay inay qadiyad sax ay lahaayeen qadiyadoodu way saxneed siyaasi laga yaabo inuu si khalad u adeegsanayo laakiin qadiyad dad waa laga gardarnaa khalad laga galay ay iska difaaceen marka filimkan insha Allah waxa aamin sanahay inuu door weyn ka yeelan doono in ay dadka qoomiyadka shucuubta wadamadan dariska la Malaysia ay fahmaan Soomaaliya nolosheeda taariikhdeeda siyaasadeed khaasatan wixii burburka ka dambeeyay dagaaladan waxay ku bilaabmeen iyo qaabka oo lagu xallin karo inay tahay qaab siyaasadeed taasoo marka insha Allah waxa aamin sanahay oo ana rajaynayaa filimka markuu soo baxo in oo dad badan oo dalkan u dhashay iyo dalka dariska ah oo waxba ka fahamsaneen arrimaha Soomaaliya inay wax fahmi doonaan ay bigger image heli doonaan insha Allah waa tahay Jerry hi Thank you. tahay Leo باي وقصة gabar Soomaaliyeed taa ku jirta filimka hooyo Soomaaliyeed thank you so much guys